ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام وفاز كل من صلى وصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبات سو دواده هدانا عشركي سدحات example-kii afraad casharkankii ka horreeyay waxaan soo dhignay iyadoo aan qaadanay example-keenii saddexaad inaan yahay aan rajaynaa insha Allah haddana aan kasii socono meesheenii aan kasii wadno haddii uu Ilaahay yiraahdo. example-kan afraad waxaan ku qaadanaynaa what is waa maxay the spring constant ma doorsoomo moole of a spring ee moole that needs midaasoo u baahan a force xoog of 3 newton ee 3 newton ah waxay u baahan tahay xoog 3 newton ah in loo adeegsado to compress it si loo riixo loo cadaadiyo from 40 cm iyadoo 40 cm ahaaday to in la geeyo markaa 35 cm 35 cm moolada dhirirkeeda wuxuu ahaa 40 cm waxaa la rabaa in la isku riixo la geeyo 35 cm xooga loo adeegsanayana waa 3 newton haddaba sheeg ma doorsoomaha moolada su'aashu waa intaa. okay marka koowaad horta given aan iska qorto waxaan leeyahay given aan dhaho given maxaan haystaa marka koowaad waxaan haystaa force ayaan haystaa horta force-gay waa imisa waa 3 newton maxaa kaloo haystaa waxaan haystaa iyaduna x oo weliba laba x haystaa sida hore oo kale x1 waxaan haystaa x1 x1-kaygu waa imisa x1-kaygu waxa waaye waa 40 cm waa 40 cm oo ila mid ah 40 cm meeqo la mid yahay wuxuu la mid yahay 0.4 oo maxay meter la mid yahay. okay x2 isaguna maxaan haystaa x2 isagu waxaan haystaa waxaan haystaa waa imisa 35 cm soo maaha 35 cm meeqo la mid yahay isagana boqol qeyb un la centimeter meter bedelaysa boqol qeyb waa 0.35 oo meter ah hadda doontan waxa sameey kartaa iyagoo centimeter-ka ah kala jaro number-ku soo bax meter u bedelo waxba isma dhaamaan meesha taagan tahay maxaa la ii diray k ayaa la ii diray oo maxaa spring constant ma doorsoomaha moolada ayaa la ii diray. okay أنا marka sabuurada aan ku shaqeysanahay inta ay soo qaat sabuurada. okay inta maan haystaa waxaan leeyahay shali f baa lii weydii f way fuday waxaan dhihi jiray k lagu dhufto x marka hore horta x aan soo helo x maxaan haystaa hal x aan u baahanahay meeshan waxa ii yaala 2x x waxaa lagu helaa 2x oo la kala jaray 2x 40 cm ayaan haystaa oo 0.4 meter ahaan ah 30 cm oo haddii meter loo bedelo 0.35 meter ah aan dhaha marka 0.4 oo laga jaray maxaa laga jaraa 0.35 dhe marka 0.35 ii kala jar x maxaa soo baxayana soo iima soo baxayo 0.05 oo meter ah x waan helay. okay warku waa cad yahay laakiin maanta k yaa la ii diray shali force yaa la ii diray warku wuu fududaay k lagu dhufto x maanta k yaa la ii diray sidaan ku heli waan soo buruufanayaa marka qaacidada waxaan leeyahay waxaan haystaa f na waxay la mid tahay k-ga oo maxaa afwan waxaan rabaa inaan dhaho k-ga oo lagu dhufto x soo maahan maanta waxaan u baahanahay marka k-ga si aan u helo k-ga maxaa diris la soo x maaha waxaan leeyahay f waxaa lagu heli jiray k lagu dhufto x soo maahan k-gan si aan u helo meel kasta maxaan u qaybinaa dhahay x dhankaan x u qaybi dhankaan maxaad u qaybisaa x u qaybi maxaa isla baxaya x kan kore iyo x kan hoose way isla baxayaan
laakiin x kan hoose oo f ta ku xiriira f ta waxa ag yaal x kale oo la baxa maya saadarteeda labadan x daas la bixi meesha waxa uu hari doona un k kaliya waxaan leeyahay marka k ga isaga soo hormarso wuxuu la mid yahay f loo qeybiyo x isaga wuxuu la mid yahay f loo qeybiyo x ayuu la mid yahay waxaan leeyahay f loo qeybiyay x ayuu la mid yahay okay k waan soo helay marka aan ku badbadashto un f wixii aan haystay aan ku badasho f meeqaan soo helay f waxaan soo helay aan kor u laabto f maxaan haystaa bal fiirso f soo 3 newton ma haysti okay 3 newton ku badala marka f booskeeda waxaan ku badalataa 3 newton waxaad tiraahdaa 3 newton haye booska kalena x maxaa haystaa booska x kan booskiisa maxaan ku badashaa 0.05 oo mitir ah 0.05 oo maxaa mitir ah okay intaa maxay soo baxay marka k gaygu wuxuu la mid noqonayaa marka k muxuu la mid yahay 3 waxaad u qeybisaa 0.05 maxaa ku soo baxayana sidaan rajaynayo waa 60 newton oo maxaa per meter sababtoo ah newton per meter iyaga isma bixin sidoo ku soo qaatay right example ka waxaan rajaynayaa in la ila gartay aan ka gudbo example ka afraad aan gudbo example ka shanaad tu ilaahi yiraahdo 5 kg mass shay culeyskiisa uu yahay waa example ka shanaad waxaa la yiraahdaa 5 kg mass shay culeyskiisa uu yahay 5 kg suspended waxaa laga soo laadlaadiyay from a spring mola ayaa laga soo laadlaadiyay mola meel la suray qaybta dambe ee moolada ayaa culeys dhan 5 kg lagu xiray produces waxay soo saartay mooladii ee displacement barbax way fid way jiidmatay sababtoo ah mooladii meel la suro shayna gadaal looga xiro maxay sameynaysaa way diiqdaa soomahan way diiqday markay diiqday waxay barbax sameysay marka 20 cm 20 cm hoos u diiqday what is waa maxay afan labaad isa qore meeshan hal xabaas ka tiro what is waa maxay the spring constant madoorsoomaha moolada maxaa waay use adoo isticmaalaya gravitational force oo ah 9.8 meter per second square adoo isticmaalaya okay waxaan leeyahay horta mass maxaan haystaa meesha maxay yaala 5 kg 5 kg yaa waay waa mass wuxuu ila mid yahay 5 kg iyo maxaa kala haystaa waxaan haystaa 20 cm oo displacement soo loo maqaalin in xarafka x wuxuu ila mid yahay waa imisa 20 cm yaa rabaa marka anigu maya meter u bedelo boqol u qeyb hataa meter rabtina centimeter u bedeshay ay maxay soo baxaya 0.2 oo maxay meter iyo maxaa kala haystaa wax kale ma haysto laakiin waxa la yiri gravitational force waxaad u qaadataa oo g ah 9.8 u qaado waxa la yiri 9.8 meter per second square u qaado inta waa la yiri g daana waxa la socotaa waa g da yar ma ahan g da weyn okay haye maxaa lagu diray marka spring constant ayaa lagu diray k ayaa lagu diray k ayaa laga rabaa lagu yiri k ayaa laga rabaa ayaa lagu yiri k gaagu muxuu yahay constant okay spring constant hadda qaacidada ka soo hadalnay horta marka koowaad aan sabuuradii aadno si aan u soo shaqeyno okay k maxaa lagu helay hadda k soo helnay Soomaan qaacidada k waa soo proofnay marka aan proofeeno k maxaa lagu helaa k waxa lagu helaa f loo qeybiyo x k maxaa lagu heli jiray k waxa lagu heli jiray force-ga oo loo qeybiyo maxay displacement k maanta force aan haystaa marka may force ma haystay laakiin waxaan ogahay force-ga in lagu helo waxa lagu helaa mass lagu dhigto gravitation samahan booska force aan ku bedasho mass lagu dhigto gravitation marka waxaan leeyahay booskan force aan ku bedasho mass lagu dhigto gravitation maadaama ay isku mid yihiin okay waxaan leeyahay k wuxuu la mid yahay okay booskii force waxaan ku bedasho samahan mass lagu dhigto gravitation mass maxaa haystaa mass waan haystaa gravitation waa haystaa sababta haday force loo qeybiyo x aan ugu shaqeeyo waxa waaye aan force ma haysto
laakiin waxaan ogahay force in lagu helo mass lagu dhigto gravitation oo mass waan haystaa g na waan haystaa booskooda marka waxaad ku bedelataa booski force waxaad ku bedelataa mg bes okay m meeqa haysataa ama mass waxaa haystaa 5 kilogram soo maha lagu dhuftay haye g na maxaa haysataa 9.8 meter per second oo maxaa square dheh marka inta oo loo qaybiyay okay s maxaan haystaa ku bedashtaa marka s maxaa ku bedashtaa x aan rabaa afwan x maxaa haystaa ama displacement laba displacement marka displacement afwan 20 cm haystay 20 cm marka meter u bedel maxay soo baxay 0.2 oo meter soo maahan okay x waxaan haystaa 0.2 oo meter marka xalee x waxaan haystaa 0.2 oo meter inta marka taaganta waxaad tiraahdaa korkaan kore isku dhufo 5 waxa ku dhufataa 9.8 kilogram meter per second square kilogram iyo meter per second square hadii isku dhufaan waxaad xasuusataa waa newton kilogram meter per second square waa newton ogow waxaan leeyahay marka k wuxuu la mid yahay okay 5 waxa ku dhufataa 9.8 waxa ku soo baxaya rajayna 49 hadii kilogramka meesha yaala iyo meter per second kaba la isku dhufto kilogram meter per second square wuxuu awaataa inuu ku la mid yahay newton inta la saxo oo loo qeybiyay maxaan u qeybinayaa 0.2 oo maxaa meter ah okay inta marka haysto waxaad tiraahdaa k-gaygu muxuu la mid yahay marka 49 waxa u qeybisa 0.2 waa imisa soo kuma soo bixin 245 newton per meter dhe marka iyaga newton per meter sababtoo ah newton kor u saaraya meterna hoos newton per meter waxaan rajaynayaa example kaana in la ila gartay insha Allah taala aan u gudubnay example-ka lixaad wuxuu leeyahay 2 kilogram mass shay culeyskiisa yahay 2 kilogram hangis ayaa waxa lagu dhajiyay at the end dhamaadka of spring moolada qaybteeda dambe ayaa lagu dhajiyay whose constant taasoo madoorsoomaheedana is uu yahay 400 newton per meter waa 400 newton meterkiiba the mass culeyska is displaced barbax ayuu ku sameeyay as a distance masaafo dhan 2,000 cm ayuu sameeyay inta markuu sameeyo jiiday oo culeyska lagu dhajiyay samaan kadibna aan release wala siiday yani waa laga furo culeyska laga sii daayo what is waa maxay the acceleration karaarka at the instant isla markiiba the displacement barbaxu is uu ahaa 7 cm 7 cm markuu ahaa sababta waxa lagu yiri baalkan waa la jiiday 12 cm oo tagay 12 cm markuu tagay waa la sii daayay maxaa dhacaya marka inuu dib u laabto samahan wuxuu noqonayaa 12 cm 10 cm 9 8 7 markuu maraayay meeqoo ahay karaarka su'aasha waa inta waxaan filayaa su'aasha in la gartay okay karaara la diray karaarna qaacidada hore ayaan soo sheegay oo acceleration waa soo proofna hada xasuusita hadii kalena 10 kankii ka horeeyay dib ugu laabo si aad ugu dharagto okay given ka aan qaadano waxaan leenahay given okay given ka aan qaadano waxaan leenahay horta maxaan haystaa marka koowaad waxaan haystaaba m oo 2 kilogram mass culeys shay culeyskiisa 2 kilogram ya samahan m waxaan haystaa 2 kilogram maxaa kaloo haystaa k oo constant spring constant madoorsoomaha moolada waa 400 newton per meter maxaa kaloo haystaa 2x x1 iyo x2 laakiin waxa ogaataa aduu x1 kuma quseeyay kan kala ku qosay waxa la yiri su'aasha lagu weydiiyay waxay tahay what is the acceleration karaarka maxaa waay at the instant isla markiiba the displacement barbaxu is u marayay 7 cm 12 oo ahay waa la sii daay markuu dib u laabtay oo 11 10 9 8 7 markuu marayay markuu 7 maray karaarku ku socday baa lagu dirsaday marka given ka aan qorano marka karaarka labaad ee muxuu ahaa
midkan labaad 7 cm ka ah waxaan leeyahay x waxaan haystaa 7 cm laakiin centimeter miyaan rabaan may meter waa waxaan ku shaqeynayo waxaad u qeybisaa 100 waxa ku soo baxay 0.07 oo maxay meter haye maxaa lagu diray marka waxaa la ii diray acceleration ayaa la ii diray waa maxay acceleration ama karaar ayaa la ii diray okay si aan u shaqeyno aan mar sabuuradii aadna horta waxaan leeyahay acceleration baa lagu diray acceleration qaacidadeeda muxuu ahaa afwan acceleration maxaa lagu heli jiray casharka hore dib ugu laabo soo fiiri muxuu ahaa haye soo ma ahaan minus k afwan minus k lagu dhuftay x inta oo loo qeybiyay m soo inta lagu heli jiray inta waa lagu heli jiray waa warcad okay waxaad tiraahdaa marka minus waxaad tiraahdaa minus k maxaan haystaa horta minus ka soo qaata isagu waa calaamade k maxaan haystaa k waxaan haystaa waa imisa 400 x na x waxa 7 cm oo ahaa meter baan u bedelay 0.07 soo ma noqon wuu noqday haye m na meeqaan haystaa m waxaan haystaa 2 kg inta aan ku badbadasho marka waxaad tiraahdaa minus haye k meeqaan haystaa k waxaan haystaa 400 newton per meter soo ma ahaan inta oo lagu dhuftay marka maxaan ku dhufanayaa x meeqa haystay x bracket yar aan furto oo kan laftirkiisa bracket aan saga xirtaba calaamada ku dhufashada bracket ahaan aanu adeegsado waa loo adeegsadaa ugu hadda bracket ka dhigo haye maxaa marka x meeqa haystaa x soo ma haystaa 0.07 meter soo sinta ma way tahay haye m na waa imisa m waa 2 kilogram waad garateen baan rajeynayaa okay acceleration waxaan haystaa marka waxaa sameysaa minus 400 0.07 ku dhuf hadda intaadan ku dhufanina meterkan iyo meterkan soo isla bixi karaan sababtoo kana hooseeyo waa kana waa sareeyo way isla baxaan kor waxa ogaataa newton baa ku soo heri doona kor waxa ogaataa inuu newton ku soo hari doona haye isku dhufo marka minus 400 waxa ku fitaa 0.07 waxaan rajeynayaa waxa ku soo baxay 28 oo calaamada minus wadata waa imisa minus 28 meter isla bixi newton waxaan leeyahay marka waa 28 oo maxaa newton inta oo loo qeybiyay 2 kilogram 2 kilogram okay qaacidada halbeega aan fiiriyo marka waxaan rabaa inaan halbeega isla socodsiiyo waxaan leeyahay ogow waxaad ogaataa newton wuxuu ku limid yahay kilogram meter per second square soo xasuus hadaan waan sheegay aan ku bedelo newton booskiis waxaan rabaa qaacidadan inaan hagaajiyo bes wax kale ma rabo booska newton waxaan rabaa inaan ku bedelo kilogram booska newton haday waxaan soo sheegnay kilogram meter per second square inuu noo limid yahay inta buu noo limid yahay baan okay waxaad tiraahdaa marka kilogram iyo kilogram soo isla bixi karaan way isla bixi karaan isla bixi iyagu 28 labo qeybi عفوا ماينس كيا ماشان كتجي عفوا ماشان ماينس أكو جرا لا تني سديدا ماينس وضعتها لا تني سديدا ماينس وضعتها عفوا سامهن ماينس 4 هدي لو دفتو بلا 0.07 نمبر هدي لسكو دفتو لا تسديدا صباحايا هدي ماينس بلاس لو دفتنا ماينس صباح لسه اوكي acceleration كي وحو لميد هاي مركا وحو لميد هاي ماينس 4 ومحا meter per second square sababtoo ah kilogram kan iyo kilogram kan isla bixiyay meesha waxa igu haray inta casharkeen inta inoo joogo insha Allah taala casharka xigana si dhaqsa ayaan ku soo duubi doonaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin wixii tala soo jeedina iyo wixii xaaladaha su'aalaha waxaad noo reebi doontaan commentiga haduu Ilaahay yiraahdo